soo dhawaada qisooyinkeena tixanaha ah. Qiso walba oo dhacda waxaynu ka qaadanaa cimri qaadasho nagu filan. Qisadeena koowaad ayaa ah qiso cajiib ah, mawduuceeduna uu yahay ninkii 70 sano Allah u cibaadeysanayay, caabudayay, ay ka awood badnaa 70 sano 7 maalin uu dambi sameeyay iyo xumaan. Mar labaad soo dhawaada asxaabta sharafta leh channelkeena Xikmad Officail. Xikmad Officail waxaad ka helaysaa xikmado xul ah, qisooyin cajiib ah iyo weliba taariikhyo. Qisadeena koowaad ayaa ku bilaabanaysa sida tan. Nin ayaa Allah dartiis ugu muhaajiray meel baadiye ah si uu u cibaadeysto, aysan ishiisa u qaban wax xumaan ah. Magaalada uu ka haajiray waxaa ku badnaa Yahuud. 70 sano ayuu meel gooni ah uu Allah dartiis ugu cibaadeysanayay. Maalin ayaa shaydaan ku dhahay, bal magaalada sanadooyin badan ayaa kugu dambeysay ee soo eg. Markii ayuu magaalada aaday, wuxuuna la kulmay dumar cawradooda banaanka taalo oo dhar yariis xiran. Haweeney ayuu la kulmay, way kaxaysay, xaafadeeda ayay geysay. Muddo 7 maalmood ayuu gurigeeda joogay. Naagtii waxa ay samaysay inay jirka u rixriixdo isagoo raali ka ah, sideed cuntan ugu rixriixdo. Ninkii maalintii 7aad ee ugu dambeysay ayuu soo baraarugay oo na dareemay inuu wuxuu sameynayo dambiyihiin. Wuu ka soo cararay asigoo magaalada ku cusub. Maalmihii uu joogay guriga ku xirnay ayaa meeshii uu ka heli lahaa masjid ama meel muslimiin joogta uu raadinayay ayuu wadada cagta saaray. Wuxuu arkay 11 nin mowlac yar ku cibaadeysanaysa. Wuxuu arkay 11 nin oo ku cibaadeysanaysa mowlac yar. Wuu u imaaday, wuxuuna ugu sheekeeyay qisadii ku dhacday. Way soo dhaweeyeen. Ninkii 70 sano camal uu soo falayay ayaa 7 maalmood ayaa ka awood badnaatay. Nin walba xerta ka mid ah markii la joogo waqtiga qadada wuxuu leeyahay jab muufo ah. Ninka martiga ah looma helayo muufo. Ninkani meesha uu ku cusub yahay, xilli qada ayuu ku soo beegmay. Ninkii martida ahaa ayaa safka hore galay. Markii la bilaabay qayminta cuntada ayaa asaga laga bilaabay. Ninkii ugu dambeeyay ayaa waayay qaybtiisii. Kabacdi wuxuu yiri, hal ay siiyo qadadeeda. Markuu waayay qof siiya ayuu baxay asagoo xanaaqsan. Ninkii ayaa isgartay oo na dareemay jabka muufada uu haysto inuu xaq u lahayn. Ninka kale sii baxaya wuxuu ka daba qayliyay, wuxuuna ku dhahay, jabka muufada adiga ayaa xaq u leh oo cun. Mar allaala markii uu siiyay ayaa ninkii nafta ka baxday. Malaa'igtii jannada iyo kuwii naarta ayaa ku dooday, waa ahlul janna iyo ahlul naar. Rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa ku dhahay, malaa'igtii 70 sano waxaa ka awood badnaaday 7 maalin. 7 maalinna waxaa ka awood badnaaday jabka muufada. Sidaas ajligeed ayuu ninkii jannada ku mutaystay. yaa Allah, inaga dhig kuwa iimaan saalix, camal saalix ah sameeya. yaa Rabbi, aamiin aamiin.